طحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله رحمة واسعة. marka waxaan ku jirnay qadarka mashiicada ilaahay subxaanahu watacaala ee kowniga ah iyo mashiicada ilaahay ee sharciga ah iyo ilaahay subxaanahu watacaala wax kasta isaga inuu qadaray waxay doonaanba ha noqdee oo wax ka hoos baxa aysan jirin. gaalnimada ilaahay inuu qadaray subxaanahu watacaala, iimaankan ilaahay inuu qadaray subxaanahu watacaala. qofkii gaal loo qadaray oo la cadaabay ilaahay cadaaladiisa lagu cadaabay subxaanahu watacaala. qofkii janno la geliyeyna fabimaxdi fadlihi ilaahay fadligiisa oo baraxla ayaa lagu geliyey. marka masalada qadarkan ku jirna sheekha marka waa kii soo taxliiliyey ducadii yaabka badnayd oo ahayd allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik wa acuudu bimucaafaatika min cuquubatik wa acuudu bika minka. yani ducadaas oo aada u taxliiliyey sheekha oo uu yidhi fiiha falaa yuclamu ma fi hadihi alkalimaat min altawxiid والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. marka meesha lagu wareeraho baadinimada ka timidna wuu sheegay sheekha oo asalka dhibka wareerka meeshuu ka yimid waxay ahayd ilaahay sidee wax u qadaray, wuxuu qadaray isaga qofkii wax uu u qadaray haddana sidee ugu cadaabaya. taasu marka waa kii ka soo hadlay sheekha. qadarkana waa masalada maaragta ugu aadka ugu dadka lagu wareerin karo ugu shubha badan. fain qiila haddii la yidhaahdo yidhi sheekha raximahullah, fain qiila haddii la yidhahdo kayfa yuriidu, laakiin qadarka markaad akhriso waa degaysaa runtii. qof aan qadarka waxaa la yidhaha muslimiinta xoogooda wuxuu ka imaana rumayntay rumaysayin qadarka ilaahay. qofka hadduu qadarka rumaysan yahay waa xasilaya, leanna wuxuu og yahay waxaan ilaahay qadarin inaysan ku dhacayn, wixii ilaahay qadarina inuusan seegayn. taasuu og yahay, taasuu ku dhex soconaa marka isagoo aad iyo aad u qalbi adag, isagoo waxaan u jeedaa isagoo calool adeegaas haysto, isagoo rumaysan maa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak. sheekha masaladii weliddii sii daba socdaa wuxuu leeyay fain qiila haddii la yidhaahdo kayfa yuriidu allahu, sidee ilaahay u doonaa amran amar, walaa yardaahu haddana uusan raalli uga ahayn, walaa yuxibuhu uusan u jeclayn. wa kayfa sidee buu yashaa'uhu u doonaa, wa yukawinuhu u ahaysiiyaa wuxuusan raalli ka ahayn oo uusan jeclayn. wa kayfa yujmacu iraadatuhu lahu, see loo kulminayaa ama see lisu waafajinayaa iraadatuhu doonistiisa lahu shaygaa uu doonay, wa buqduhu nacaybkiisa iyo wa karaahiyatuhu kahashada iyo nacaybka uu nacab yahay. sidee wax ilaahay uu nacab yahay oo uu u caroonayo raalli ka ahayn, sidee ilaahay haddana u doonaya doonistiisa. su-aashatan huwa aladii iftaraqa annaas, waa midda dadka kala kaxaysay liajlihi isaga dartiis, firaqan firqooyin u kala kaxaysay oo firqooyin ay u kala tageen, wa tabaayanad ay kala tagtay duruquhum jidadkooda oo aqwaaluhum hadalladooda. meesha lagu kala tegay oo dadka firqooyin loogu qaybsamay oo hadallada ku kala tageen waa meeshaanu yidhi sheekha. faclam waxaad ogaataa ana almuraada ilahay xaqa hana waafajiyo subxaana wa tacaala. faclam waxaad ogaataa ana almuraada doonista nawcaani waa laba nooc. muraadun linafsihi wax asaga naf ahaantiisa loo doonayo, wa muraadun ligayrihi iyo wax loo doonaya gayrkiis. mid loo doonaya isaga laftiisa, asaga laf ahaantiisa mid la doonayo, iyo mid la doonayo oo loo doonaya gayrkiis sababteeda, gayrkiis darteed loo doonayo. falmuraadu kan la doonayo linafsihi asaga naf ahaantiisa la doonayo
مطلوب ولا ضلبايا محبوب ولا جعل هي لذاته isaga ذات ahaantiisa laf ahaantiisa loo jecel yahay wamaa fiihi waxa ku jira oo meel khayr ah ayaa loo jecel yahay loona doonaya fahuwa muraadun waa mid la doono iraadat alghaayaati walmaqaasid doonista waxa yoolka ah iyo waxa loo qasto yacni sida loo raadiyo kale oo ghaayada aad raadinaysid iyo qasadka maqaasidda aad u socotid ayaa loo doonaa saas oo kale oo isaga laf ahaantiisa ayaa la doonayaa waa la jecel yahay marka waxaa la yidhaahdaa waa muraadun linafsihi walmuraadu ligayrihi waxa la doono oo gayrkiis sababteeda loo doonana qad laa yakuunu waxaa dhici karta inuusan ahaanin maqsuudan mid loo qasdaayo looga qasdaayo limaa yuriidu waxa uu doonayo mid looga qasdaayo inuusan ahayn ayaa dhici karto walaa fiihi maslaxatun lahu maslaxana aysan ugu jirin isaga qofkaa doonayo binadri marka la fiiriyo ilaa daatihi isaga daatadiisa marka la fiiriyo shayga uu doonayo waxaa laga yaabaa kan muraada ligayrihiga ah qad laa yakuunu maqsuudan lima yuriidu inuusan ahayn waxa uu doonayo mid uu u qasdaayo inuusan ahayn walaa fiihi maslaxatun maslaxana inaysan ku jirin ayaa laga yaabaa lahu isaga qofkaa doonayo oo ligayrihi u doonayo inayna maslaxa ugu jirin binadri ilaa daatihi marka la fiiriyo qofka wax doonaya daatadiisa wain kaana wasiilatan ilaa maqsuudihi wa muraadihi fahuwa makruuhun lahu min xayثu nafsihi wa daatihi wain kaana hadduu yahay wasiilatan wasiilo ilaa maqsuudihi waxa uu u qasdaayo wasiiladuu ku gaari lahaa haba noqotay wa muraadihi waxa uu doonayo fahuwa isaga makruuhun waa mid la kahdo lahu isaga uu dhibsanayo min xayثu nafsihi isaga naf ahaantiisa wa daatihi daata ahaantiisa inkastoo wasiilo uu u yahay waxa uu doonayo waxa uu u qasdaayo oo wasiilo uu u yahay uu ku gaarayo fahuwa makruuhun lahu waa miduu kahanayo lahu isaga min xayثu nafsihi isaga naf ahaantiisa wa daatihi iyo daatadiisa muraadun lahu waaye mid la doonayo min xayثu qadaa'uhu wa iisaaluhu ilaa muraadihi min xayثu qadaa'uhu xagga qadiha xaggiisa marka laga fiiriyo iyo wa iisaaluhu gaarsiintiisa ilaa muraadihi muraadkiisa uu gaarsiinayo fahuwa muraadun lahu min xayثu qadaa'ihi wa iisaalihi ilaa muraadihi muraadun lahu wuu rabaa min xayثu qadaa'uhu qadihiisa iyo wa iisaaluhu gaarsiintiisa ilaa muraadihi waxa uu doonayo ilaahay waxbuu doonaya subxaana wa tacaala marka waxbuu sheegi doonayaa ama qofka waxaan doonayo qasadkiisuu ku gaarayaa muraaduu ka leeyahay marka daatadiisa ma jecla haba gaarsiiye qasadka uu leeyahay muraadka uu leeyahay fayajtamicu fiihi alamraani labadii amar ayaa isugu imaanayo buqduhu nacaybkiisa iyo wa iraadatuhu doonistiisa walaa yatanaaf kala gedisan darteed waxay ku tacalluqayaan oo kala gedisan darteed waxa waay muraadun ligayrihi wax kaluu ilaahay ka rabaa subxaana wa tacaala marka waxaan loo doonay isaga kayrkiisa ayaa loo doonaya marka laakiin isaga daatadiisa ma jecla oo waa necab yahay ilahay subxana laakiin muraad kale oo ilaahay uu leeyahay oo qadihiisa la xiriiro ayuu ku gaarayaa saasuu marka ilaahay u qadaraya subxaana wa tacaala mithaal uu soo qaaday wuxuu yihi wahada ka dawaa waa sida daawada oo kale alkariihi la necab yahay daawo kharaar oo xun oo dhib badan oo kale idaa calima hadduu og yahay almutanaawilu lahu daawadaas qofka qaadanaya ana fiihi
daawada shifaa'uhu bogsooshadiisa inay ku jirto. daawadii wuu necab yahay haddana wuu qaadanaya, wuu doonaa, waa rabaa, laakiin wuu necab yahay xagga daawo ahaan marka la yidhaahdo. masalan chemotherapyga marka hadda qofkii kansara ku dhacay chemotherapy lagu samaynaya, qofkii mararka qaarkood wuxuu gaaraa heer aad u liita. chemotherapyga marka lagu samaynaya daawooyin waaweyn iyo culus iyo waxbaa lagu duraya, wuu ogol yahay inkastoo de naftii qabanayso, laakiin oo uu necab yahay, ka daawo ahaan u necab yahay, naftiisa aysan rabin, haddana wuxuu qasad ayuu ka leeyahay. oo maxay tahay qasadka? inuu ku bogsado. marka waxaa isla socdo nacaybkii iyo rabitaankii, labadiiba isla socdaan. doonistii aad doontay daawada iyo nacaybka aad necab tahay, labadiiba way isugu yimideen daawadii. wuxuu rabaa inuu sheekha kuu soo dhowaysiiyo, inuu ku fahamsiiyo shay ilaahay uu necab yahay muxuu u qadaraa alla subxaana wa tacaala. sidoo kale waqadcu lcudwi, xibinta goynteeda, almuta'aakili xibnaha kala cunaysa, cudurrada keenaysa. muta'aakilka waxaa la yidhahdaa xibin maaragtay qaar dhammaaday oo qaar iscuntay oo ama cudurka ku dhacay. waxaa jira cudur akaala la yidhaahdo oo ku dhacan, ma aqaan khaatiir cudurradan kale waxa uu ka yahay ma garanayo, laakiin waxaa loo jeeda cudura ku dhaca xibintii, markaa way soo gogo'aysaa. xibinaa go'ayo, cadaa go'ayo, mid kalaa go'ayo, jirkii o dhan bay gaaraysaa. marka see la yeelaya? waa la goynaa iyadoo dhan si ay cudurkii u istaago. marka ama cudurkaas ka soo galaa iyadii ka waa la seena. lugta goysmadeeda waa la necab yahay, haddana waa rabtaa, waxaad leedahay iga gooy, waa doonaysaa. yani doonistaadii iyo marka nacaybkaadii way isla wada socdaan. doonistaadii iyo nacaybkaadii way isla socdaan. idaa calima hadduu og yahay ana fii qadcihi, xibintaas goynteeda, baqaa'u jasadihi, jasadkiisa intii soo hartay inay baaqi ku noqonayso oo ku badbaadayso. wa ka qadci almasaafati shaaqa, masaafada dhibka badan leh goynteeda, idaa calima hadduu ogaado annaha masaafadaas tuusilu inay gaarsiinayso ilaa muraadihi wa maxbuubihi, waxa uu rabo iyo wuxuu jecel yahay. masalan safaruu galaa rafaad, waxuu jecel yahay waxaasoo dhan ma, haddana wuu rabaa. muxuu rabaa? wuxuu rabaa inuu ku gaaro gabaruu rabaa reer inuu kasoo guursado masalan, oo uu ka doono. dadka reer baadiyahaasay samayn jireen, ay safri jireen oo maaragtay intaasoo habeenuu sii dhaxaaya, sii gaajoonaya, maxaa reeruu gabar ka rabaa. marka waxaasuu jecel yahu ku gaaraya. marka shay waa la dooni karaa, waa la necbaan karaa lianna qasadka laga leeyahaa fiican oo laga rabaa. bal ilcaaqilu, qofka caaqilka, yaktafi wuxuu ku kaaftoomaa fii iithaari hada almakruuhi, waxaan uu necab yahay doorashadiisa, wa iraadatihi doonidiisa, bidanni alghaalib, malo haalib ah ayuu ku doortaa wax la necab yahay. malahaas muxuu yahay? waxbuu isleey waa ku gaaraysaa. masalan wuxuu leeyahay haddaad jaamacadda ka baxdo oo PhD qaadato, shaqo fiicanaad helaysaa, mishaaraad qaadanaysa, wax la huba ma aha. marka wax la huba ma, waa danni haalib ah. marka muxuu samaynayaa? yani waxbarashadii u galayaa, habeenkii u soo jeedayaa, qaarkood waaba ku xanuunsanaan say wax u akrinayaan, baa ka sugaa, lacaguu ku bixinayaa. marka waxaasuu dhibsaan dhan u adkaysanaya, sababtaa muraadka uu leeyahay ayaa fiican. marka jacaylkii iyo rabitaankii, wixii dhibka badnaa rabitaankiisii way isu imaanayaan. wain khafyad haba ka qarsoonaata canhu isaga xagga caaqibatu cirib dambeedkiisa. waxaa dhici karta jaamacadda markuu dhammeeyo dakhtar noqdo, bishii mishaarkii asoon qaaday inuu dhintaa dhici karta, inuu dhintaa laga yaabo, waana dhacday. qof siduu wax ugu ordaay markuu gaaray meeshii u dambeysay uu mirihii guran lahaa dhintayba. marka malahaas ayaa mararka qaarkood wax dhib ah lagu qaataa oo lagu doortaa maaragtay. wain khafyad canhu caaqibatu, ciribtiisa baa ka qarsoonatee. fa kayfa bal ka waran miman laa yakhfaa, qof aysan ka qarsoonin caleyhi asaga khaafiyatu, wax qarsoomo aysan ka qarsooneen. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu og yahay, yacni xikmad weynaa ku jirto. dadka qaar inay naar galaan oo ilaahay uu qadara subxaana wa tacaala inay gaala noqdaan oo ay naar galaan.
إلهي إنه قدر سبحانه وتعالى حكمة ديدو أوجي هيبقى الله سبحانه وتعالى إن حكمة كجرته يعني أو إلهي سبحانه وتعالى قدر كيساس إنه كجر الحكمة فهو سبحانه إلهي فنانتي سيكره وكهانا يا الشيء وكهانا وحبو كهانا يا ولا ينافي في ذلك أرن كاسنا كمهر إيمانا إرادته دونستي لأجل غيره غير كيس درتد ومارت ودوني الله سبحانه وتعالى وكونه أهانشديس الصواب سبب وياهي إلى أمر أرن وياهي هو أساق أحب إليه إلهي لوغا جعل بدن يهي من فوقه إساق يعني كوركيسا كسي سريو من ذلك وحكم إذا مثلا تصال سوق هذا الشيخ أنه إلهي خلق إنه أبور إبليس أي إلهي أبور سبحانه وتعالى الذي هو مادة لفساد الأديان إبليس محوية ومادة دينتا فسهادينيسا ومادة أما آلدة ديمها فسهاديسا صحدا والأعمال إبليس ومتك عمل كفسهادية ضدك والاعتقادات عقيدوين كفسهادية والإرادات دونستا قفك وحا ودونا وحا فسهادي وإبليس وهو سبب أيوئيه إبليس لشقاوة كثير من العباد إن بدنوا أدوامدا كمد شق النمدودا إن النار قلان إساق يا سابوا وعملهم إن ددك سميان بما يغضب الرب ربي وحدبايو كعريسينايو سبحانه تبارك وتعالى وهو إبليس الساعي ومدك أردايو في وقوع خلاف إن يدعان خلاف ما يحبه الله ويرضاه إلهي وحا وجعلها ورالي كيهي وحا كسوه رجيدة إن يدعان ومدك كشقينايو ومع هذا ساس أيتهاي فهو إبليس وسيلة وحو وسيلة إيهي إلى محاب كثيرة وحفربضا وجعلها للرب تعالى وحبضا ربي وجعلها أي وسيلة إيهي ترتبت كرلتي على خلقه إلا أبورو إبليس ووجودها أحب إليه من عدمها ووجودها يعني محابتاس ووجود المحاب أحب إليه أيها إلهي أكجعليها من عدمها إني سنجرين والله بابئيو وحبضنوا إلهي جعليها أيها إبليس أبو رديسا كدنبعية وحبضنوا إلهي وجعليها سبحانه وتعالى يا كرة ما يا أبو رستا إبليس أبو أصدقوا إنتا صدن والإلهي ونعبيه سبحانه وتعالى سببوا وصلقوا منها وحاكم إذا محابتي وحو إلهي جعلا وإبليس أبو رستيسا يعني كرنا لنيسي وحاكم إذا أنه يظهر للعباد يظهر وحأمه قنايو للعباد أدومد قدرة الرب تعالى أود الرب سبحانه وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات إنه أبوره وح إسكسو هرجيدو وإسقابلايو إنه أبوره إنه يددك إلهي أبصو بنان ديغو وأموقته فخلق هذا الذات إلهي وحو أبور ذاتدا إبليس التي هي أخبث الذوات وأهذاتوين كمدة أغو خبيثا وشرها أغو شربدا وهي سبب كل شر كستنا أيضا أي سببها في مقابلة ذات جبريل كسهر جيتك وحا مقابل أتها ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات كاس ذات ذا سوء يعني ذاتوين كمدة أغو شرف بدن وأطهرها أغو ظاهر سن وأزكاها أغو ظاهر سن وهي مادة كل خير ومادة خير كستا فتبارك وحا كرأ هذا خالق هذا وهذا إلهي إبليسنا أبوري جبريلنا أبوري أيا يعني أمر كيسو كرأ هذا مركا إلهي ضدك وحا أمه قناة مركو هرسئين إلهي سبحانه وتعالى وجل وعلا أبوري كروح إسكسو هرجيدا
ibliis oo shar oo dhan saldhig u ah oo yacni camal xun oo dhan saldhig u ah iyo malaku jibriil oo camal oo dhan khayr u ah saldhig u ah oo waxyiga keena oo maaragtay ilaahay subxaana watacaala ayuu ilaahay abuuray subxaana wataala marka ilaahayga waxa iska soo horjeeda khaaliqu hada wa hada ilaahaygaasa marka xikmadda weyn oo ku jirto oo waxa ilaahay uu jecel yahay ah waa taas kamaa dahara siday u muuqatay qudratu ilaahay awoodiisa fii khalqi leyli wannahaar habeenkii maalinta abuuritaankooda habeenii maalin abuuritaankooda habeenka waa dhib badan yahay dad badan oo mugdi ahaa ku rafaadayo shayaadiinto dhan soo baxdo bahallada dadka laayo haddana xikmada ilaahay ugu dan leeyahay subxaana wa tacaala maalinta iyo habeenkii inuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala wadawaa'i daawada iyo wadaa'i cuduraa ilaahay sameeyey subxaana wa tacaala haddana wuxuu abuuray daawadii lagu daaweyn lahaa alla subxaana wa tacaala waa laba shay iska soo horjeedo waxay tusinaysaa awoodda ilaahay subxaana wa tacaala cudur ilaahay inuu abuuri karo daawadii lagu tirtiri lahaana ilahay inuu abuuri karo subxaana wa tacaala oo maanta ma jira maa min daa'in ilaa jacalahu dawaa cudurka waa wax la necab yahay daawadii waa wax la jecel yahay marka xikmadda laga leeyahay waxa waye oo ilaahay jecel yahay in laba shay iska soo horjeedo ilahay inuu abuuri karo subxaana wa tacaala cudurka iyo daawadiisa walxayaati nolosha iyo walmowti dhimashada waa laba shay iska soo horjeedo tan ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala dhimashada waa la necab yahay xayaatada maaragtay saas oo kale waa la jecel yahay marka ilaahay baa iska abuuray subxaana wa tacaala walxasani waxa fiican oo quruxda badan leh walqabiixi waxa foosha xun ilaa waxa fool xun haddaan la arkin waxa qurxanmaba la arkayo hadday wada qurxan yihiin oo dhan wixiioo idil wax kasta hadday quruxda meesha u dambaysaga mid yihiin lama garanayo quruxda macnaheeda iyo qiimaheeda marka waxa foosha xun la arko ayaa wixii qurxanaa la garanaya qiimaha uu leeyahay walkhayri khayrka iyo washari sharta ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala khayrka iyo sharta labadaba wadalika arrinkaasna adallu daliilin waxay tahay daliil midka ugu tusin badan calaa kamaali qudratihi ilaahay awooddiisa inay dhammaystiran tahay wa cizatihi cizadiisa wa mulkihi boqortooyadiisa wa sultaanihi awooddiisa fa inahu ilaahay khalaqa wuxuu abuuray haadihi almutadaadaati waxa kan iska soo horjeedo ayuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala wa qaabalahaa wuxuu ka horgeeyey bacdahaa qaarka bibacdin qaarka kale wa jacalahaa wuxuu ka dhigay maxaala tasarufihi wa tadbiirihi maxaala tasarufihi maamulashadiisa booskeedii wa tadbiirihi maamulkiisa ayuu ka dhigay yani waa maamul ilaahay subxana wa tacaala kana inuu abuuri karo kana samayn karo kuwaasaan waxu samayn kara alla subxaana wa tacaala fakhuluwu lwujuudi adduunka oo ka maran can bacdihaa qaarkeed bilkuliyati kuliyan ay ka maqan yihiin tactiilun waxay fariisinaysaa lixikmatihi ilaahay xikmaddiisa wa kamaali tasarufihi maamulkiisa dhammaystirnaantiisa wa tadbiiri mulkihi boqortooyadiisa maamulkooda haddii la yidhaahdo ibliis meesha haba laga saaro sharta ha laga saaro meeshii khayr keliyo maxdi ha yimaado waxaa meesha ka maqnaana markaa ilaahay awooddiisa iyo maamulkiisa iyo tadbiirtiisa dhammaystirkeediyaa meesha ka baxa waana meesha ilaahay uu jecel yahay subxaana wa tacaala oo qasadka loo qadaray waxa xun oo loo qadaray waxa xun wa tadbiiri mulki uusan raalli jeclayn oo uusan raalli ka ahayn ilaahay u qadaraa subxaana wa tacaala duhuuru aathaari asmaa'ihi magacyada ilaahay saameyntooda ama raadkooda muuqashadiisa alqahriyati ee qasabka ah magacyada qahriga waxaa loo jeedaa alqahaar almuntaqim yani addaar annaafic shadiid ulciqaab magacyadaas saameyntooda inay muuqato ayaa ku jirto ilaahay inuu qadaro wuxuusan jeclayn ousan raalli ka ahayn aahaaru asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa raadkooda inay muuqato alqahriyati ee khasabka ah mithla masala alqahaar ilaahay waa midka khasba addoommadiisa alqahaar waa masalan addoommadiisa ilaahay khasab subxaana wa tacaala
qiyaamaha marka la tago alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala maaragtay wax nuuxsanaa ma leh falaa tasmacu ilaa hamsa yowmaidin yatabicuuna daaciya laa ciwaja lahu wakhashacat ilaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa ilah waa keen subxana wa tacaala marka yani qahaar waa magacii qahaarka ilaahi subxana wa tacaala yani kii kaafirka ahaa iyo kii mu'minka intaba ilaahay baa subxaana wa tacaala khasbayo almuntaqib magaca ilaahay aarsada subxaana wa tacaala magaca ilaahay ee aarsado haddaanan jirin waxba laga aarsado oo aysan jirin wax ilaahay inta ka hor yimaada caasiya la dagaalama ilaahay marka uu ka aarsado ciqaabo subxaana wa tacala haddayna jirin magacan see ku muuqanaya dadkuna hadday baariyaal yihiin marka magaci ilaahay muuqashadiisiyaa ku jirta meesha walcadli cadliga alla subxaana wa tacala cadaaladiisii magacan cadli waa ilaahay caadila qofkii xumaan samayn xumaantiisii laga abaalmariyo qofkii wanaag samayn wanaaggii laga abaalmariyo cadligaas xaga ka muuqana wuxuu ka muuqana inay kala gedisan yihiin dadkii wadaari ilaahayga wax dhiba subxaana wa tacaala wax la dhiba haddaysan jirin xaggee ka muuqana magacii ilaahay oo daariga ahaa addaaru annaafic washadiid alciqaab ilaahay ciqaabkiisa uu daran yahay wax la ciqaaba haddaysanba jirin sidee magaca ilaahay ku muuqana inuu ciqaabkiisa daran yahay wasariicu alciqaab ciqaabkiisa kii uu deg deg yahay wadilbadshi shadiid ilaahayga qabashadiisu ay xoog badan tahay yacni ina badsha rabbika la shadiid qabashada alle subxana wa taala mid daran qabashada ilaahay ay daran tahay see lagu ogaana wax la qabta haddaysan jirin mid ilaahay caasiyo oo ka kibra oo maaragtay la dagaalamo isweyneeyo oo yidhaah man ashaddu mina quwa sida reer caad oo kale ay u yidhaahdeen wa qaaluu man ashaddu mina quwa awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa ilaahayga maaragtay abuuray inuu ka xoog badan yahay iyagu miyaysan ogeyn oo ilaahay markaa burburiyey subxaana wa tacaala yani marka ilaahi subxaana wa tacaala sabca layaal munqacir ayagoo ah yani geed timira jiradiisii oo burburtay oo bolol ah sidoo kale ayaa maaragtay ilaahay soo daadiyey subxaana wa tacaala marka magacaasaa muuqanaya ilaahay subxaana wa tacaala badshigiisa inuu daran yahay walkhaafid ilaah waa kan hoos u dhiga walmudilu waa ilaah wax dullaya subxaana wa tacaala magacan haddaan cid qadarka alla ku dhicin la dulleeyo haddaynan muuqan ama maaragtay hoos loo dhigo see magaca u muuqanaya ilaah waa kan hoos u dhiga cidduu doono ilaahay hoos nooma dhiga subxaana wa tacaala ilaahayna lama dulleeyo yacni rabbi subxaana wa tacaala kor ha noo qaado oo hana cizeeyo oo hanu karaameeyo alla ka cabsigiisa nagu karaameeyo marka ilaahay waa khaafid magacaasuu leeyahy alkhaafid allah hoos wax u dhiga waa subxaana wa tacaala nin halkaa jooga arkaysaa dhulka alla geey subxaana wa tacala xusni mubaarak maanta shalay dowladu ah madaxweynuu ah wuxuu rabo amray wuxuu rabo xiray wuxuu rabo maantana maaragtay isagoo maaragtay sariir ku jiifa ayuu yahay maaragtay maxkamad saaran yahay oo maaragtay xabsi daa'in lagu xukumay oo jeel uu galaya yacni waa ninkii markuu amar bixiyo dadkao dhan wada istaagi jireen hal mar markuu amar bixiyo dadkao dhan wada fariisan jireen yani subxaana alkhaafid subxaana almudil ilaahi subxaana wa tacaala fircoon waxaa laga keenay asagoo meesha u sarreeya biyaa lagu halaagay afkaa ciid looga shubay khaafid hadduuna jirin fircoon oo kale ilaahay qadarkiisa uusan ku imaanin sidee magaca ilaahay u muuqanaya subxaana wa tacaala faina hadihi alasmaa magacyadatan ilaahay walafcaali ficilkiisa kamaalun waa kaamilnimo laabudda min wujuudi mutacalliqihaa laabudda waxaa laga maarmaana min wujuudi mutacalliqihaa waxa ay la xiriirto midkay ku tacalluqaysa in la abuuro midkay ku tacalluqaysa waa in la helaa walow kaana aljinu walinsu jinnigii iyo insiga oo dhan calaa dabiicati almalaa'ika sida malaa'igtoo kale hadday wada noqon lahaayeen lam yadhar atharu hadihi alasmaa magacyadan raadkooda ma muuqan lahayn ma ujeedaa lam yadhar atharu hadihi alasmaa magacyadan yani raadkooda ma muuqan lahayn wa minhaa waxaa ka mid ah waxa ilaahay jecel yahay oo wax uusan raalli ka ahayn uusan jeclayn ilaahay u qadara subxaana wa tacaala waa culuum hoose culuumta allaha cilmiga
على إلهي علمك هالنوفر سبحانه وتعالى وعلوم يعني معين هو معانا وعلوم وحوي هوسو نحر واي شيخ وحو كهالله ومعارف يعني إلهي سبحانه وتعالى ومعارف ربانية وعلمي هوسو معان واي ومنها وحا كمد وحا إلهي وجعليه سبحانه من المحاب وحا إلهي جعليه وحا كمد وحا حن إلهي أقدر سبحانه وتعالى وصرال لكين أقدر ظهور آثار أسمائه مقعيديسا موقشدو رادك مقعيديسا رادكودا موقشديسا وبنان لك الصوديقو المتضمنة حنبارسا لحلمه إلهي دلقات كيسا وعفوه عفنتيسا ومغفرته دنبداف كيسا وستره أسترديسا وتجاوزه اسكدافديسا عن حقه الله حقيسا اسكدايو وعتقه حرينتيسا لمن شاء قفكو دون عبيدها دومديسا كمدا فلولا خلق إلهي هدوسا أبوري لهين ما يكره وحو إلهي ونعب يهي ومن أسباب السبباء المفضية قارسينيسا إلى ظهور آثار هذه الأسماء مقعيدان رادكو موجنتيدا قارسينيسا هدوسا إلهي أبوري لهين لتعطلت هذه الحكم والفوائد لتعطلت وحا فريسا لها هذه الحكم حكموين كان ربا لوين لها والفوائد يفائدوين كان إيا لوين لها يعني إلهي وستار سبحانه وتعالى قف عيب كدعو الله أستر هدان وجرين إلهي مقع سوء موقنايا إلهي وادب قف دنبي كدعو والله قدر الدنبي إلهي دنبي مجعله لكن وقدر الله سبحانه وتعالى وحكم إذا إلهي عفنتيس إذا مدافكيسا حقيقة إيمانا وإن لها لا قف دنبابي حلمك إلهي دلقاتك الله وإن لها لا مد إلهي كفري مد إلهي عاسي وإن لا قدره وحاصل وحو يريه حكموين كاس لما ماشى كبحلا يفايدوين كاس وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم وحو فرتكو فيقي إلى هذا متكان بقوله نبي هذا الكيسة يكوت المامي وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث كان يابكم بدن وفير صدا لو لم تذنبوا هدينا دنبابين لذهب الله إلهي وإذن بابئين لها بكم إذنك ولجاء وحو لا إيمان لها بقوم قوم يذنبون دنبابه ويستغفرون إله دنبداف ويديستا فيغفر لهم ومركا إلهي ودنبداف حديث كاسو حديث يابله ومسلم وريه حديث صحيح وحوله هدينا دنبابين إلهي وإذن ترتر لها قوم وحلكين لها دنبابايو ومركا دنبداف مقعي إلهي بكون موقناي سبحانه وتعالى ومنها وحكم ذا محابته ومنها وحكم ذا إلهي سبحانه وتعالى هنون حريستو إلهي نودم بدافع سبحانه وتعالى ومنها وحكم ذا وحا إلهي جعليه ولو قدر وحس إلهي رالي كاهن وسن مالتي جعلين وحو قدر حكمة دي وحكم ذا وحكم ذا ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة ظهور آثار أسماء الحكمة حكمة مقعيدة حكمة والخبرة خبرة مقعيدة وخبير إلهي سبحانه وتعالى وأنا حكيم مركا رادكو ذا إنو موقضه إيضا وكمت وحيلها اللي قدره وحسن إلهي لكاين سبحانه وتعالى فإنه إلهي الحكيم وعلى حكمة بدن الخبير وعلى حق أقال الذي يضع الأشياء ذا ديغو مواضعها ماشي لوغو تلقلي أي إلهي ديغا وينزلها وحدجية منازلها ماشي لديغ لها اللائقة بها أقلنته فلا يضع شيء مدق إلهي في غير موضعه ماشو كهب ولا ميلان أهين إلهي مدق سبحانه وتعالى ولا ينزله مدجيو غير منزلته ماشي ودق لها ولوغو تلقلي ميلان أهين التي يقتضيها وكينايو كمال علمه إلهي علميسا لما يسترنانتيسا وحكمته حكمتيسا لما يسترنانتيسا وخبرته إلهي خبرتيسا لما يسترنانتيسا تسينيسا فهو إلهي
أعلم وقال بدن حيث يجعل ميل ويلايو رسالته رسالة دي سميشو دقايو إلهي أساق قرنا يقول رسالة دي سقف كله ديبايا إلهي أساق قرنا سبحانه وتعالى وأعلم إلهي أساق بمن قفك يصلح كهبون لقبولها رسالة أقبلتان كذا ويشكره كشكرنا على انتهائها إليه قارد إيسو قارتي أساق وأعلم إله وكان أقال بدن بمن لا يصلح قفا كهبون لذلك أرنكا marka ilaahay asaa garanaya risaaladiisa qofka u qalma oo qaadan kara oo ku sharafoobi kara oo weli ilaahay ku noqon kara oo ilaahay ku jeclaana subxaana wa tacaala qofkii loo dhiibi lahaa iyo qofka qaadan lahaa oo ku dhaqmi lahaa ilaahay asagaa og subxaana wa tacaala saa arrinkaasi og wuxuu ka og yahay midka aan rabin midka aan u qalmin midka aanan maaragtay aqbalaynin فلو قدر إلهي هدو قدر لها عدم الأسباب المكروهة سببها لنعب يهي ولكهنايو إنو هدوسا قدر لهين لتعدلت وحا بابئ لها حكم كثيرة حكموين فربدا يا بابئ لها أو ماشا كبح لها لتعدلت حكم كثيرة حكموين بدن هدان أن أسبابها لنعب يهي سادسين جرن قال لماذا فسوق فسادك كفرك يعني وحس إلهي بقدر سبحانه وتعالى هدينا جري لهين حكموين فربدا بدن أيام ماشا كبحلها ولا فاتت وحا تجي لها مصالح عديدة مصلحوين فربدا أي تجي لها ولو عدلت هدي أي بعضه تلك الأسباب سببها لما فيها وحا كجر إيضو أي لسعر أو من الشر شرعه iyo wax shar ah wad hadii asbaabahaas meesha ka baxaan la tacadala alkhayr khayrka ayaa cadilmi lahaa alladhi huwa a'zamu min ash-sharri oo ka weyn sharta alladhi fi tilka al-asbaabi sababahaas ku jiro sharta ku jirta sababtaas ama shayga yani khayrka ka weyn oo hadda kuwan soo sheegnay ay kamid yihiin ayaa meesha yani baabi'i lahaa oo meesha ka bixi lahaa وهذا arrinkaasna waxay la mid tahay ka shamsi qoraxda walmatari roobka walriyaaxi dabaylaha allatii fiiha qoraxdaas iyo roobkii dabaylaha min masaalixi maslaxooyin ay ku jiraan ma huwa adcaafu ma yaxsulu biha min ashari ma huwa adcaaf wax ah laalaab ma yaxsulu biha min ashari waxa sharta laga helaayo wax ka badan oo in badan ku jibaarmo laga helay saasoo kale la mid tahay buu leeyahay qoraxda dadku waa gubaysa dhiday ka keenaysa ay gubaysa leedahay rafaaday leedahay qoraxdu waa dhib badan tahay haddana maxaa faa'iidaha ku nolosha dhan ku xiran ba maaragtay waxa la yiraahdaa qoraxda hadaysan ahayn jirin waxa baabi'i lahaa nolosha dhan waa baabi'i lahayd maxaa qoraxda waxa la yiri light energy-ga qoraxda ka yimaado oo ilayska tabarta ilayska ah ayaa geedka wuxuu u bedelaa food energy caleenta geedka dhigtaa food energy kan macaadinta hoos dhulka laga soo qaaday iyo qoraxdaas waxbay isku dartaa wax caleenta say qabato warshada ku taalo oo ilaahay ku sameeyay subxaanahu wa ta'ala markaas ay cunto ka dhigtaa cuntadaas la wada cunaa xoolaha iyo dadkaba wax sameyn karo caleenta aan ahayn ma jirto waa yani waxa la yiraahdaa photosynthesis-ka yiraahdaan qoladan photosynthesis-ka yani waxa loo jeedaa photosynthesis-ka waa isku xirxiridda iftiinka qoraxda oo cunto laga dhigo cuntadaas geedka uu sameeyaa xoolahana cunaan dadkana ay cunaan marka dadka kaasaa lagu nool yahay haddii marka iftiinkaas uu istaago waxay yidhahdaan nolosha dhan waxay ku xiran tahay reaction-kaasay ku xiran tahay basa haddii iftiin la waayo nolol ma jirto macnaheedu adduunka oo dhan ma aragtaa marka qoraxdan kuleelka badan see la dhahaya waa kuleel badan tahay waa gubaysaa dadkii oona loogu dhammaanaya waxaasoo dhiba way leedahay laakiin haddana waxaa ka badan masaalixda ay ku jirto roobka sidoo kale roobka waa aragtay guryuu duminayaa caruu rogayaa qabow buu leeyahay waxaasoo dhibahu wataa haddana maca daalika waa aragtay faa'iiduu leeyahay beerihiyaa ku baxay dadkiiya cabaayo xoolihiya cabaayo webiyadiiya ku soconayo warihiya ka buuxo intee maslaxa oo ku jirto dabaylaha saas oo kale way dhib badan yihiin iyagana dabaylaha
way dhib badan yihiin maaragtay saas oo kale iyo haddana dabaylaha faa'iido badana ku jirto oo geedihii bacriminayaan oo doonyihii socodsiinayaan oo maaragtay masaalix aad u fara badana ka buuxdo marka wa minha waxaa ka mid ah waxyaalaha ilaahay jecel yahay oo ku jira qadaridda waxaan ilaahay raalli ka ah in la qadaro waxaa ka mid ah xusuulu lcubuudiya addoonnimo in la helo almutanawicati ee kala gedisan allatii lowlaa khalqu ibliis haddii haddaan abuuritaanka ibliis jiri lahayn lama xasalad cubuudiyadaas lama heleen cubuudiyada addoonnimada kala gedisan oo intaasoo nooc qofka addoon u noqonayo ilaahay addoon ugu noqonayo subxaana wa tacaala lama heleen haddaan ibliis la helin intaasoo addoonnimo aho ilaahay addoon loogu noqonayo subxaana wa tacaala oo dadkiisa wanaagsan ay ugu noqdaan addoommo lama heleen fa ina cubuudiyat ljihaad masalan addoonnimada jihaadka min axabi anwaaci alcubuudiya addoonnimada noocyaalkeeda midda ilaahay ugu jecel yahay waa ilaahi subxaana wa tacaala waa midda loogu jacayl badan yahay yani addoonnimada jihaadka ilahay tacaala marka waa addoonnimo ilaahay kugu addoonsaday subxaana wa tacaala oo ilaahay kaa rabo waana waxa ugu jecel yahay allah subxaana wa tacaala addoonnimada jihaadka marka walow kaana annaas dadkao dhan kulluhum dhammaantood mu'min hadday mu'miniin ahaan lahaayeen latacadalat hadihi alcubuudiya addoonnimadan maba la heli lahaynba iyo wa tawaabicaha waxa soo raaco oo meel muwaalaati lilaahi subxaanah ilaahay in weli loo noqdo ah waalmucaadaati fiihi ilaahay dartii wax loola colaytama ah yacni waa cubuudiyat alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar addoonnimada waxa wanaagsan in la amro waxa xuna la reebo waa cubuudiyat asabri sabarka addoonnimadiisa wa mukhaalafati alhawa addoonnimada sabarka maxaa lagu helaya waxaa lagu helaya in naftii ibliis wuxuu jecel yahay laga celiyo in xumaanta laga celiyo inaad ku sabarto maaragtay daacadii ilaahay macaasidii inaad ka sabarto ilahay caasintiisii wa mukhaalafatu alhawa hawada in la khilaafo hawada maxay tahay wuxuu nafta waxaa ibliis jecel yahay wa iithaari maxaabi illaahi tacaala ilahay waxa uu jecel yaho la doorto wa cubuudiyati tawba walistikfaar addoonnimada toobakeenka iyo ilaah dembi dhif weydiska subxaana wa tacaala xagee ka imaana markii la dembaabo ibliis la raaco ayaa towba timaadaa markii dembi la galaa istikfaar timaadaa addoonnimada marka towbada xaggee laga helayaa waxaa laga helaa ilaahay inuu qadaro subxaana wa tacaala macaasida iyo kufriga iyo wixii xumaa inuu ilaahay qadaro subxaana wa tacaala wa cubuudiyati alisticaadati magangelyada addoonnimadeeda billahi ilaahay la magan galo an yujiirahu inuu ka badbaadiyo min caduwihi cadowgiisa wayaxsimahu uu ka dhowro min keydihi hagartiisa wa adaahu dhibkiisa waa addoonnimo kale oo magangelyada ilaahay la magan galo waa addoonnimo ilaahay subxaana wa tacaala addoon loogu noqdo oo ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala marka wax laga magangalo ilaahay hadduusan jirin see loo xaqiijinayaa magangelyada ilaahay keligii la magan galo subxaana wa tacaala oo cadowga kaa badbaadiyo markaa cadow aragto ku baabi'inayo keydkiisa culus yahay dhibkiisu badan yahay markaasaad aad addoonnimada xaqiijin kartaa ilaahay magangelyadiisa ilaahu ibliisaan kaa magan galay ciidankiisaan kaa magan galay wax xunaan kaa magan galay haddayna wax xun jirin sidee addoonnimadaas magangelyada ay u xaqiiqoobi lahayd ilaa gayri dalika intaas waxaan ahayn oo min alxikami xikmooyinka ah allatii tacjuzu alcuquulu caqliyaashu ay ka daalayaan can idraakiha inay gartaan sheekh waa sheekh cajiib ah ilaahay ka raali noqdo oo jannadii allah geeyey maaragtay in yaroo hadda noo taabtay laakiin xikmooyin kaloo fara badana jirto oo caqliga uusan garan karin marka haddaad istiraahdo yani ilaahay horta muxuu gaalnimada u qadaray wuxuu ibliis muxuu u qadaray naarta muxuu u sameeyey yacni waxaanuu xikmad aha ku jira ilaahay og yahay subxaana wa tacaala waa arrin aad ka bogsoon karto markuu sheekha aad kuugu soo dhoweeyo fain qiila haddii la yidhahdo yidhi sheekh raximahu llah fahal kaana yumkinu wujuuda tilka alxikami biduuni hadihi alasbaab su-aal kalaa ka dhalan karto su-aashu maxay tahay oo iyadoon xikmooyinkan si kale ilaahay ma u muujin karay iyadoo aan la samaynin waxaan dhibka ah oon aan dadka qaar naar la gelinin
oo qaar aan maaragtay qaar la cadaabin oo qaar aan dhibkan loo geysan ilaahay subxana wa taala si kale ma u muujin karay xikmooyinka asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo si kaloo aan sidaan ahayn ma u muujin karay ilaahay muxuu ugu muujin waayey allah subxaana wa tacaala waa su-aal kale hoos aan usii daadegayna godka sheekha wuxuu nala sii degayaa waxaad moodaa inuu ku jiro maskaxdeenna hoos usii degaya fain qiila haddii la yidhahdo sheekha fahal kaana yumkinu suurtagal ma ahaan lahayd wujuudu tilka alxikam xikmooyinkaas aan soo sheegnay in la helo biduuni hadihi alasbaab sababahan iyadoo ayna jirin lagu gaaray sababahan lagu gaaray oo ah gaalnimadii iyo cisyaanka alleh iyo ibliis abuuridiisa iyo waxaasoo dhan iyadoon jirin asbaabahaas iyadoon jirin xikmooyinka ilaahay ma suurtagal muuta inuu muujin karo sheekha wuxuu yidhi fa hada su'aalun faasid su-aashan waa su-aal aan naf lahayn macno weyn ma leh fa hada midkan su'aalun faasid waa su-aal hallaysan oo khariban wa huwa fardu wujuudi almalzuumi biduuni laazimihi wa huwa muxuu yahay fardu wujuudi almalzuumi shaygii malzuumka ahaa in la qadaro biduuni laazimihi wuxuu ka dhalanaya iyadoo aan la qadarin ka fardi wujuudi alibni waa adigoo qadarayo canug in la helo biduuni alabi aabba la'aan waalxarakati dhaqdhaqaaq in la helo biduuni almutaxarik wax dhaqaaqa iyadoo aysan jirin watawbati towba in la helo aad biduuni taa'ibi qof towba keenayo isagoo aan la haynin yacni shaygii laazimka ahaa wuxuu ka laazimayey wixii wax laaziminayey oo meesha aad ka saarta waayo oo tiraahdo maaragtay towba maa la helo iyadoo wax towba keena aysan jirin yacni maa la helo maaragtay carruur la helo iyadoo wax dhala aysan jirin maaragtay dhaqdhaqaaq maa la helo iyadoo wax dhaqdhaqaaqa jirin waa shaygii laazim malzuumkii wixii dhalanayaad sheegaysaa wixii ay ka dhalanayeenna meeshaad ka saaraysaa marka waa su-aal wuxuu yidhi faasid ah oo su-aal faasid ah yacni waxaanu xikmadu waxay ku imaanayaan wixii ay ka dhalanayeen waaye aahaartii ay ka dhalanaysay waxaalihii marka dad meesha ka saarto tanna waxay noqoado tan yidhi tan maa la helo carruur maa la helo iyadoo aan aabba iyo hooyo midna jirin maa la helo dhaqdhaqaaq iyadoo wax dhaqdhaqaaqa jirin marka waa su-aal faasid uu yidhi oo sideeda ayay u jiran tahay fain qiila haddii la yidhaahdo faida kaanat hadihi alasbaab sababaha kan hadday yihiin muraadatan mid la doonay oo ilaahay doonay oo qadaray allah subxaanahu wa tacaala limaa tufdii ilayhi waxa ay gaarsiinaysa sababteeda oo min alxikami xikmooyin ah fahal takunu mardiyatan ayada lafteeda ma noqonaysaa mid laga raali yahay maxbuubatan la jecel yahay min hada alwajhi dhinacaas marka la fiiriyo maadaama wax wanaagsan ay lagu gaarayo oo wax fiican lagu gaarayo ayada nafteeda ma noqonaysaa wax fiican oo maaragtay laga raali yahay ma noqonaysaa am hiya masquudatun mase waa wax la necab yahay min jamiici alwujuuh gebi ahaanteedaba dhinac walba marka laga fiiriyo dhinac marka laga fiiriyo waa wax aan maaragtay xun hada su-aal wuxuu yidhi su-aashatan waa su-aal meesha ku jirto yuraddu waa la celiyaa calaa wajhayn laba weji ayaa loo radiyaa oo lagu celiyaa axaduhumaa labada weji midkood waxa waa min jihati rabbi tacaala xagga rabbi jihadiisa tacaala korahaye wa hal yakuunu muxabban laha ilaahay asbaabtan ma jecel yahay min jihati ifdaalihaa gaarsiinteeda min jihati ifdaa'ihaa gaarsiinteeda jihadeeda xaggeeda ilaa maxbuubihi wuxuu u jeclaa ee gaarsiisay ilaahay xaggiisa ma tahay wax laga maaragtay jecel yahay wain kaana yubqiduhaa haba u nacbanaado allah subxana wataala lidaatiha iyada daati ahaanteeda iyada laf ahaanteeda haba ahaada mid uu necab yahaye laakiin maadaama wasiile ay tahay xagga rabbi marka la fiiriyo maaragtay ma jecel yahay inay dhacdo ma raba alla subxana wataala ma jecel yahay alla subxana wa tacaala wathani midka labaadna qeybta su-aasha qeybteeda ka labaadna waxay noqonaysaa min jihati alcabdi addoonka xaggiisa marka laga fiiriyo wa huwa annahu
هل يسوغ له الرضا بها هل يسوغ له موع من تلك الجهة dhinacaas marka uu ka fiirinayo oo ah inay gaarsiinayso ilaa maxbuub illahi subxaanaه watacaala o ilaa xikmat illah aydan فهذا سؤال له شأن su-aashan waxay leedahay sha'ni buu yidhi waa su-aal weyn sha'nina way leedahay xagga marka laga fiiriyo rabbi subxaanaه watacaala iyo xagga addoonka marka laga fiiriyo xagga addoonka marka laga fiiriyo ilaahay raalli wasiilada ma jecel yahay inkastoo waxaan dhan ilaahay qadari subxdo inay naarta galaan in gaalnimo loo qoro qaar in maaragtay waxa dhacayo oo dhan ibliis abuuritaankiisa wasiila maadaama ay tahay min jihati rabbi ma yani hawa abuura soo necebba ha abuure oo ha qadare isaga xaggiisa maaragtay ma laga jeclaan karaa arrinka labaadna hadda xagga addoonka oo addoonka raalli ma ku noqon karaa jihadaas isagoo fiirinayo oo gaalnimadii raalli ma ku noqon karaa yani fasaadkii raalli ma ka noqon karaa ibliis raalli ma ka noqon karaa raalli ma ka noqon karaa su-aashaas marka wuxuu yahay su-aal weyn faclam waxaad ogaataa ana shara sharta oo dhan ana shara kullahu dhammaantii yarjicu wuxuu u noqonaya ila alcadami cadam ayuu u noqonaya yani jiritaan la'aan acni waxaan u jeedaa hu yidhi sheekha cadam alkhayri khayr in la waayo wa asbaabihi sababihii keenayey almufdiyati ilayhi khayrka gaarsiinayey sababihii khayrka gaarsiinaya in la waayo taasaa shar oo dhan ay u noqonaysaa wa huwa min hadihi aljiha jihada marka laga fiiriyo sharun waa sharu yidhi in la waayo khayrkii sababtiisiina la waayey khayrka gaarsiinaysay xagga marka laga fiiriyo waa sharu yidhi ama min jihati wujuudihi jiritaankiisa jihadeeda almaxdi ee baraxa la jiritaanka min jihati wujuudihi jiritaankiisa almaxdi ee saafiga ah falaa shara fiihi shar kuma jirta buu yidhi mithaaluhu tusaalihiis muxuu yahay ana nufuusa shariira nafta sharta badan leh wujuuduhaa jiritaankeeda khayrun ayaa ka khayr badan min xayثu hiya mawjuuda marka la fiiriyo jiritaan ahaan inay jirtaa khayr badan oo waxay ka khayr badan tahay inaysan jirin wainamaa xasala laha sharu sharta waxay ku timid biqadci maadati alkhayri khayrka maadadiisii oo ka go'day canha iyada xaggeeda fainahaa khuliqad waxaa la abuuray fi lasli asalka mutaxarikatan mid dhaqdhaqaaqayso inay tahay fain uciinad haddii lagu kaalmeeyo bilcilmi cilmi wa ilhaami alkhayri khayrka in lagu ilhaamiyo taxarakad way dhaqdhaqaaqaysaa bihi cilmigii iyo khayrkii dhaqdhaqaaqaysaa wain turikad haddii laga tago taxarakad waxay dhaqdhaqaaqaysaa biطabciha dabcigeeda ilaa khilaafihi ay khilaafi alcilmi waalkhayri ayay u dhaqaaqaysaa wa xarakatuha dhaqdhaqaaqeeda min xayثu hiya xaraka wuxuu u jeedaa sheekha haddii asalka la abuuro iyadoo dhaqaaqayso oo markaa cilmi lagu kaalmeeyo khayrka la waafajiyo marka waxay dhaqaaqaysaa yacni khayrka xaggiisa u dhaqaaqaysaa loo dhaqaajinina waxay iyada bidabcigeeda waxay u dhaqaaqaysaa khayrka waxa ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqeeda dhaqdhaqaaq ahaan maaragtay xarakatuha min xayثu hiya xaraka inay dhaqaaqdo dhaqaaqaas ama khayr ha u dhaqaaqdo ama shar ha u dhaqaaqdee waxay ka khayr badan tahay inaysan dhaqaaqin wa xarakatuha min xayثu hiya xaraka dhaqdhaqaaqay dhaqaaqayso xaraka ah khayrun waa ka khayr badan yahay wainamaa takunu sharan dhaqdhaqaaqa wuxuu shar noqonayaa bilidaafa marka wax lagu daro laa min xayثu hiya xaraka xaraka ahaan yani ma aha waxay ay shar ku mudanayso yani masalan laakiin dhaqdhaqaaqa meesha u dhaqaaqday ayaa dhaqdhaqaaqeedii shar ka dhiga ama khayr ka dhigayo wa sharu sharta kulluhu dhammaantii dulmun waa dulmi wa huwa wadcu shayi waa shay in la dhigo fii gayri maxallihi meeshiisii meelaan ahayn
falow wudica haddii la dhiga fii mowdicihi meeshiisa lam yakun sharan shar ma noqonayo faculima waxaa la ogaaday ana jihata shari sharnimada dhinaca ay ka imaanaysa fiihi xarakada ama wasiilada maaragtay wasiiladaas ama xarakadaas jihada sharta ay kaga jirto waxay tahay nisbiya inay tahay idaafiya nisbayn iyo adeefin inay tahay saasaa maaragtay keenayso walihaada saa darteed kaanat alcuquubaatu ciqaabyada waxay ahaadeen almawduucati la dejiyey fii maxaalihaa meesheeda khayran khayr ayay ahaatay fii nafsihaa nafs ahaanteeda cuquubaadka meesheedii la dhigay masalan tuuga gacanta la gooyey ninaan la dilay marka cuquubadaas meesheedii maadaama ilaahay u dhigay ninkii nin dilay la dilay katabna calayhim fiiha ana anafsa binnafsi walcayna bilcayni ishii lasoo fujiyey il hadduu fujiyey ishiisii la fujiyey khayran fii nafsihaa naf ahaanteeda waa khayr wain kaanat sharan shar haba ha noqoto binisbati ila almaxalli meesha marka la fiiriyo alladii xallad bihi ay ku degtay dee ninkii la dilo xabadda lagu dhuftay naftiaa laga gooyey naftii waa xanuunsatay dhibaa ka dhacay waa raftay xanuun weynaa ku dhacay laakiin oo meesha yani maxalka ay ku dhacday shar ayay u tahay isaga ilaa dil waa dil waa isku xanuun dilkii sharay u tahay marka isaga laakiin ilaahay ciqaabkii uu booskii sii dhigay waa khayr marka la fiiriyo yani meesheedii maadaama la dejiyo ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala waa khayr laakiin asaga naf ahaantiisa waxay u tahay shar sababt maxay tahay lima axdathat fiihi waxa ay ku keentay qofkaas la dilay oo min alalami xanuun ah alladii kaanat abiicatu dabiicaddu ay ahayd qaabilatan mid aqbalaysa lididdihi waxa ka soo horjeedo oo min alidati macaan ah mustacidatan lahu yani u diyaar garoobay yani fasaara dalika alalamu xanuunkaas wuxuu noqday sharan shar ayuu noqday binisbati ilayha marka loo fiiriyo nafsadda yani marka loo fiiriyo shar ayuu noqday wa huwa khayrun waa khayr binisbati ila alfaacili midka wax sameeyey maaragtay xaggiisa marka la fiiriyo xanuunkaas qofka waxa keenay xayثu wadacahu maadaama uu dejiyey fii mowdicihi meeshii loogu talagalay oo ninkii nin dilay waa la dilay dilkaa loo geysanayo ilaahay sharcigiisa la fuliyey waa khayr marka dhinaca laga fiiriyo fainahu ilaahay subxaanahu korahay lam yakhluq sharan maxdan shar saafi ah ilaahay maba abuurin min jamiici alwujuuhi dhinacyada oo dhanba sharka ah walictibaaraati fiirinta marka la fiiriyo ilaahay shar saafi ah ma abuurin faina xikmatahu ilahay xikmadiisa ta'baa dalika arrinkaa diidayso falaa yakunu ma ahaado fi janaabi alxaqi tacaala an yuriida shay-an falaa yakunu fi janaabi alxaqi allaha xaqa ah dhinaciisa ma ahaado tacaala korhaye an yuriida shay-an shay inuu doono yakunu noqonayo fasaadan fasaad min kulli wajhin dhinac walba laa maslaxata maslaxad aysan ku jirin fii khalqihi abuuritaanka shaygaas biwajhin ma dhinac walbaba ha laga fiiriya ma jira saas shay ilaahay uu abuuray oo aan dhinac maslaxo ka ahayn oo aan khayr ka ahayn ma jiro oo shay haddii la fiiriyo kulligiisoo dhan wada shar ah oo dhinac walba marka laga fiiriyo xataa ibliis abuuridiisa inta xikmad ku jirta waa soo sheegnay ibliis abuuridiisa intaasoo xikmaha ku jirtay iyo intaasoo maslaxa oo aan la helay haddaan la abuurin marka shayga ilaahay uu abuurayo waxa dhacayo dhan shar maxdi ah ma aha yacni shar yacni soocan ma aha dhinacuu khayr ka yahay dhinacna wuxuu ka yahay shar ayuu ka yahay laa maslaxata fi khalqihi biwajhin ma hada min abyan almaxaal yani min abyan almaxaali fainahu subxaanah waxyaalaha suurtagalka aan ahayn waa waxa ugu cad saasuu sheekha yidhi fainahu subxaanahu ilaahay hofnaantiise alkhayru kulluhu biyadayhi khayr oo dhan gacmihiisa ayay ku jirtaa washaru laysa ilayhi shartana ilaahay looma nisbeeyo xaggiisa maaha wax kastuu ilaahay samaynayo waa khayr xaggiisa marka laga fiiriya alla subxaana wa tacaala waxa uu qadanaya kan naarta uu geeyey kan jirada uu ku riday kan faqriga uu ku riday kan uu maaragtay cadowga ku salliday
midka waxaasoo dhan marka ilaahay loo fiir dhinaciisa waa xikmaday ku socdaan iyo maaragtay xujo cad waa meesha aayadda ilahi uu leeyahy qul falilaahi alxujatu albaaliga falow shaaa lahadaakum ajmaciin ilaahay xujada xeelka dheer asagaa iska leh hadduu ilaahay doono kulligiin waa idin hanuunin lahaa laakiin gar waa alla subxaa saa garta iska leh garta allah cid ka gar helaysa ilaahay ma laha subxaana wa tacaala marka wax alaal wuxuu ilaahay sameyn dhinaciisa marka loo fiiriyo waa khayr washaru laysa ilayka waatan la leeyahay washaru shartana laysa ilayhi ila allahi alla xaggiisa maaha alla xaggiisa marka la fiiriyo wax walba waa xikmad iyo khayr bal kullu maa ilayhi waxa ilaah xaggiisa ah oo dhan fa khayrun waa khayr alla washaru sharta waxay timaadaa inamaa xasala wuxuu u xasilay oo yimid licadami hadihi alidaafa idaafa la'aantan wanisbatu ilayhi iyo nisbayn la'aanta ilaahay maaragtay idaafadaas la waayey oo dhinacii khayrka aysan u dhaqaaqin falow kaana ilayhi hadduu ilaahay xaggiisa yani ahaan lahaa lam yakun shara shar ma ahaadeen fata'amalhu fiiri oo aad bal uga fakar meesha fainqiطaacu nisbatihi ilayhi huwa aladii sayarahu sharaa fainqiطaacu nisbatihi ilayhi u nisbayn la'aanta ilaahay loo nisbaynayo huwa asaga aladii sayarahu ka dhigay sharan shar ka dhigay ayadana marka halkaasu kaga baxay sheekha yani jazaahu llahu khayran fain qiila haddii la yidhaahdo lam tanqaطic nisbatuhu ilayhi khalqan wa mashii'a marka insha allahu tacala waqti waa gaaraan umalaynaya waa 5:07 masalada qadar ku dhex jira weli sheekha marka intaan waxaan soo ogaanay shayga waxa sharta ka dhigayo inay tahay idaafada inay tahay idaafada inay sharta ka min haythu xaraka aysan ahayn marka runtii waa wax aad waa cilmi aad u weyn aad u ballaaran ilahay hana fahamsiiyo subxaana wa tacala allahuma faqihna fi diinika abu xaniifa raxmatullah wuxuu u bixiyey fiqhu lakbar caqiidada waa fiqiga weyn wax walba lagu salaynayo waxbaa kuu kala baxayo wax badan oo adiga isku caburinayso isleedahay kugu dhex wareeganaho kugu dhex rafanaho aad ku wareersantaha kuu kala baxayo marka aad maaragtay fiiriso oo shaydaanku kugu waswaasinayo ayaa kuu kala baxay markaa sida uu sheekha yani usoo cardiyay jazahu llahu khayran fain qiila haddii la yidhaahdo lam tanqaطic nisbatuhu ilayhi khalqan wa mashii'atan lam tanqadic ma go-in haddii la yidhaahdo nisbatuhu nisbayntiisa ilayhi alla loo nisbeeya khalqan xagga abuuritaanka wa mashii'atuhu doonistiisa ilahay inuu doono shaygaas xun maaragta uu qadaray ma go-in haddii la yidhaahdo saas qiila waxaa la yidhi huwa min hadihi aljiha xagga abuuritaankiisa iyo qadaridda iyo doonista ilahay uu doonay laysa bisharin shar ma aha fa ina wujuuduhu jiritaankiisa huwa isaga almansuubu ilayh midka ilaah loo nisbeeya ah shayga jiritaankiisa wa huwa min hadihi aljiha dhinaca jiritaan yani asharu waa kii soo yiri sheekha shartoo dhan waxay ka imaanaysaa cadamka wa huwa min hadihi aljiha dhinaca marka laga fiiriyo shayga jiritaankiisa laysa bisharin shar ma aha washaru aladii fiihi sharta ku jirto maxay tahay min cadami imdaadihi bilkhayri wa asbaabihi min cadami imdaadihi in lagu taakulayn la'aanta lagu taakulayn la waayey bilkhayri khayrka iyo wa asbaabihi sababihii khayrka lagu gaari lahaa waalcadamu laysa bishayin cadamkana shay ma aha xataa yunsaba ilaa man biyadihi alkhayru yani ilaa loo nisbeeyo yani axadka ay gacantiisa ku jirta khayr oo dhan yani cadamka ma aha shay ma aha si ilaahay loogu nisbeeyo subxaana wa tacaala cadamu imdaadihi bilkhayr ilahay inuusan khayr ku taakulaynin qofkan
uusan ku garabsin waa cadam waa shay cadam oo aan jirin marka shaygaasna looma nisbeeyo ilaahay subxaanahu watacaala ilahay looma nisbeeyo subxaanahu watacaala marka yani masalada caqadiga ah oo asalka ah oo meesha waxaa u jeedaa ilaahay subxaanahu watacaala waa qadaraa waxuusan raalli ka ahayn uusan jeclayn lihadihi alasbaab marka taasaa warka loo jeedaa in la maaragtay intaasoo dhan sheekha u maraya fain aradta haddaad doonaysuu ku yidhi sheekha masiida iidaaxin caddayn dheeraad ah lidaalika arrinka faclam waxaad ogaataa ana asbaab alkhayri halaatha khayrka sababihiisa waa saddex khayrka sababihiisa waa saddex aliijaadu in la ahaysiiyo walicdaadu in la diyaariyo walimdaadu in la maaragtay la taakuleeyo oo la sii wado khayrka horta in la abuuro marka hore yani in la diyaariyo iyo walimdaad in la sii siyaadiyo oo maaragtay la wado khayrka fi iijaadu hada khayrun yani haysiintiisa waa khayr wa huwa ila allahi ilaahay baana xaggiisa u ahaaday subxaana wa tacaala wakadalika icdaaduhu diyaarintiisana waa saas oo kale waimdaaduhu taakulayntiisa lagu taakulay khayrka waa saas oo kale fain lam yaxdud fiihi icdaadun haddaysan diyaarin dhicin walaa imdaadun taakulayn haddaysan dhicin xasala fiihi sharu shar ayaa imaanaya marka bisababi hada alcadam yani taakulayn la'aanta iyo icdaad la'aanta alladii laysa ila alfaacili kaasoo aan loo nisbayn karin ilaahigii subxaana wa tacaala waxaadkii wax samaynaya wa inamaa ilayhi diduhu waxaa isaga xaggiisa ah kan ka soo horjeedo oo ah khayrka iijaad hada khayr kaasaa ilahay loo nisbeeya khayrka ahaysiintiisa laakiin haddaan la ahaysiin la'aantaas ilahay looma nisbeeyo subxaana wa tacaala lianna waa shay cadam ah waa waxaan jirin fain qiila haddii la yidhahdo halla amadahu idaa awjadahu hadduuba abuuray muu ku taakuleeyo oo garab siiyo oo ku kaalmeeyo qiila waxaa la leeyahay maqtadat alxikmatu xikmaddii ma aysan keenin iijaaduhu ahaysiintiisa wa imdaaduhu taakulayntiisa wa inamaa iqhtadad waxay keentay iijaaduhu ahaysiintiisa wa tarku imdaadihi inaan la taakulaynin oo layska dhaafo faraha laga qaado fa iijaaduhu ahaysiintiisa khayrun waa khayr wa sharu waqaca shartana waxay ka timid min cadami imdaadihi taakulayn la'aantiisa fain qiila hadef halla amada almawjuudaata kullaha waxa jira oo dhan muu taakuleeyo ilaahay subxaana wa tacaala fahada su'aalu fasid tanna waa su'aal khariban yadunnu mawriduhu wuxuu malaynaa su-aashan midka soo aroorinayo ana taswiyata bayna almawjuudaati mawjuudaadka waxa jira oo dhan oo la simo isku si laga dhigo ablaqu fi lxikma xikmadda inay kusii fiican tahay wa hada caynu ljahli waana jaahilnimada caynteedii bal alxikmatu xikmaddu waxay keenaysaa fi hada atafaawut alcadiim kala gedisanaantan iyo kala duwanaantan weyn alladii bayna alashyaai ashyaada u dhexaysa walaysa fi khalqi kuli nawcin minha tafaawut marka la yidhaahdo walaysa fi khalqi kuli nawcin minha tafaawutun fakulu nawcin minha laysa fi khalqihi walaysa fi abuuritaanka la ahaysiiya abuuritaankooda ma kala duwana fakulu nawcin minha laysa fi khalqihi tafaawut watafaawutu inamaa waqaca kala tagsanaanta waxay ka dhacday liumuurin cadamiya umuur aan jirin lam yatacalaq biha alkhalqu abuuritaanka ilaahay uusan ku tacalluqin wa ilaa falaysa fi lkhalqi min tafaawut khalqiga kala tagsanaan ma jirto fain ictaasa calayka haada arrinkan hadday kaasii maaragtay cawiis kaa noqoto ictaasa calayka haada hadday kaa cawiis noqoto kaa murugto walam tafhamu aada fahmi weyso xaqa alfahmi fahmiddii loo baahnaa faraajic qowla alqaa'ili ninka hadlay oo hadalka yidhi hadalkiisa ku noqo oo wuxuu yidhi ninka idaa lam tastadic shayan fadachu wajaawazhu ilaa maa tastadiicu idaa lam tastadic haddaadan karaynin shay-an shay haddaa kari weyso fadachu isaga tag wajaawizhu u gudub ilaa maa tastadiicu waxaad kari karto yani shaacir camr ibnu macdi kari baa loo nisbeeyaa beydkan gabayga ah marka waxaad kari karta aad masalada qadarka haddaad dhex gasho lagu sharco yani ku fogaato isku day inaad maarataad fahmi weyso ka soco ilaa waa qadarka waa sir ilaahan soo nariya
القدر سر الله في خلقه ما فهمك إلا آد نقطه إله آد نقطه سيدي سوكر ولي أنا إله من نقونيسي waxaad ku fakaraysaa maskax bini aadan waxaad ku fakaraysaa environment wax ku saameeyey fikirkaada intaasoo dhinac uu ka saamaysan yahay qiyaastaadu waxaad way go-an tahay marka ma noqon kartid ilaahay ma fahmin inaad fahamto ka soco ku marka dad kari weyso wuxuu isku dayay inuu wax badan jilciyo sheekha oo ku fahamsiiyo haddana haddaa fahmi weyso oo ay ka hawd kaa gasho ka soco ma fahmi kartid qadaha ilahay waataan kusoo miisaalinay nin dhakhtar ah oo kuruuga ah wax qalo oo maskaxda qalo haddii aad yaa la doodi karo dhihi karo inuu khalday inuu khaldiyaa garan kara mid kuruujo ah soo kale oo maskaxda la soo barto yaqaano oo dhihi karo waa khaldantaha waa saxan tahay nin dhakhtar caadi ma dhihi karo nin aan ikhtisaaskiisa ahayn ma dhihi karo nin maaragtay caadi nin reebaadiya ma dhihi adiga ilahay xaggee isu joogtaan marka ma isu joogtaan xataa qof bini aadan oo iyo dhakhtar ma isu joogtaan mutakhasisa ma isuma joogtaan marka qadarka faraha ka qaad ha ku lumin ha ku wareerin فإن قيل هدلها كيف يرضى لعبده شيئا سيأدون كيس شيء أقرها للنقونا ولا يعين عليه أسر أقو كالمينين وح إلهي رالي كي قف إنه مؤمن نقضو إلهي رالي كي هاي حدنا محو أقو كالمين واي وسؤالك إن شاء الله 10 كسو سعود نقون دونا هدي إلهي رادو إلهي سبحانه وتعالى إلهي قدر كيس كو الله قلنا حريست الله نقدقو يعني إلهي سبحانه وتعالى كو إلهي كرال نقض الله نقدقو إلهي خاتم هذا النص بيو اللهم صل على سيدنا محمد جزاكم الله خير لدك والد دالمانتون 10 سنة أمالينا يا إن شاء الله تعالى حرجينا إنا فهمتين ومس موضوع مارتي دقيقة وعقدية ومارتي مركا إن شاء الله تعالى إلهي نودم بالعافية إلهي حقها نفهم سيو إلهي سبحانه وتعالى خيرك الله نوافجيو إلهي خاتم الله نوصوبيو إلهي جنة دي سيانا قدقو إن شاء الله قولوا ينك قلنك دم جوغنو دعاية ولما سوقانا فيدا جوغن مغربا عسرا جوغنا نوصو دعاية إن شاء الله قولوا ينك يوروب كسو جيدا ويجو خيرك دقي سنايا وسوء فرايو إلهي خير السي سبحانه وتعالى إلهي جنة دي هنو ذكري دمانتين إلهي قدر كيس كوكو سعيد الله نقدقو اللهم اجعلنا من السعداء في قدرك يا رب العالمين اللهم ادخلنا جنتك يا رب العالمين اللهم أعنا على الخير يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إله جنة نقلي إله صالح نقدق إله عبادنا وفضوذه إله خير كنجعل ليسي إله شرط النجا حجاب إله خاتم هذا النصوب إله توحيد كنا خالص كدق إله مع النبيين نقدق والصديقين والشهداء والصالحين إله نقدق إله سبحانه وتعالى مع الصالحين نقدق إله زوجاتك هجاجي اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا اللهم رحمتك الواسعة فلا تكلنا طرفة عين يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى نفس أنفسنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واسعها شأننا كله لا إله إلا إله نوح علينا النفس دينها نوح علينا إله هذه قعنتنا قبل إله النهنون إله النهجاجي إله خير كنوك حي إله عافي ما أنت حنون سنسي إله أنت لبك حيث لبك كفيت إله أنت مراد لمراد كده أسهل إله هذه خير كعنتك وهي شرطة نجا حجاب خير كنوصف فضوده يا الله يا الرحمن يا رحيم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته